maxaa keenay shirka Garowe inuu fashilmo? dib u celi taariikhda. waa 23 Abriil ee sanadkan waxaa Nairobi shir qarsoodi ah uga qabsoomay dowladda Kenya iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. shirkii Baydhabo 3 Juun 2018 ayaa lagu heshiiyay qaybsiga kheyraadka. arrintii kheyraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunahay intaas oo dhan. wadaagga kheyraadka dabiiciga ah, shidaalka iyo macdanta in dowladda dhexe laga soo wareejiyo oo ay yeelato awoodiisa sharciga dowlad goboleedyadu maadaama Kenya damacsan tahay kheyraadka badda ee Soomaaliya. haddaba aan ka jawaabno su'aashii ahayd maxaa keenay shirka Garowe inuu fashilmo? arrintan waa masiiri doorashada laga hadlayo oo tan shidaalku waa masiirka ummadda la xidhiidha. madaxda dowlad goboleedyadu waxay la yimaadeen qorshe ah inay rabaan in maamul goboleedyadu ay iyagu bixiyaan sharciyada shidaalka iyo macdanta. halkan ila eg Itoobiya waa dowlad federaal ah, haddana sharciyada kheyraadka waxaa bixin kara oo kaliya dowladda dhexe. ma jiro ismaamul iyaga ka mid ah oo shati bixin kara. 2 in xilli doorashada xildhibaanada baarlamaanka sidoodii hore lagu soo xulo ogolaanshaha madaxweynaha maamul goboleedka. haddii aan ka hadalno la yiraahdo hal la sameeyo golo lagu wada tashado baarlamaanka diidaya. haddii la yiraahdo doorashada laga hadlo baarlamaanka diidaya oo baarlamaanku isaga wax xildhibaanada. sababta ay baarlamaanku u diidayaan ayaa ah inay yihiin matalayaasha shacabka iyo inay qabtaan shaqadii dowladda dhexe uga baahnaayeen maamul goboleedyadu. wuxuu rabaa mid walba inuu isagu keensado xildhibaano uu gacantiisa ku soo xushay, halka la rabo in xildhibaan walba ku yimaado codayn rasmi ah. yaanu shaki idinka gelin wax kasta oo suurto gelin kara doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal cod iyo hal qof ku salaysan waana laga shaqeeyay. 3 in muddada dhamaatay ee Xaaf iyo Madoobe loo kordhiyo si heshiiskii Kenya uu burin. runtii shakhsiyan anigu ma qabo sida loo fasiray iyo sida muxuu ahay dadku ay uga dayrinayaan inuu shirkaas fashil yahay. shirkaas waa tilaabtii ugu horeysay oo la qaaday wada xaajoodka iyo isfahamka. qorshayaasha u qarsoon qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee danahooda gaar ka qoseeya ayaa noqday mid fashil ku soo ilaaday.